قدب روحي لقا قلي وعشاد مداي كي قلينا مبوغا كيشيقو أمهدي كي قلينا مبوغا كيشيقو أمهدي وشحو من تلقى قوين خاصو ما تقاني محاديقا كاقلي anigoo ah wariyaha radio USP jaamac maxamuud faarax waxaan halkan ku wareysanaynaa xoghayaha USP professor Ahmed Umar professor maadaama oo guddiga filinta ay xalay shirteen maxaa ka soo baxay qodobadii ku saabsanaa xasuuqii loo geystay shacabka Khaatumo ama Taleex horta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waan idin salaamayaa baada radio USP online dhammaantiinba waan idin salaamayaa waxaa kaloo halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ee kulli codkayga dhageysan doonta dhammaantoodba meel kasta ay joogaan gaar ahaan reer Khaatumo iyo Maakhir iyo Awdal State aad baan u salaamayaa horta shirkayagaas waad mahadsan tahay waxaa ka soo baxay 3 qodob qodobka ugu horeeya ah in la taxsiiyo dadkii ku geeriyooday dilka Poochxunle amba dhibta Poochxunle ka dhacday meesha iyo in la cambaareeyo cidii ka dambeysay hawshaasi fulisay falka Poochxunle iyo in wixii dardaarana ee la fariido ummadaas la faro oo loo geysto marka haddaan ku horeeyo haddaan u nahay anagu USP waxaan horta marka ugu horeeyna taxsiyo u diraynaa dadkii geeriyooday in Allah naxariisti jannaha siiyo in waalidkoogii iyo ayladoodii dhammaantoodna ilaahay ha ka siiyo samriye iimaan iyo waliba ummadda reer Khaatumo dhammaantoodba ilaahay samriye iimaan ha ka siiyo waxaan intaa kolkaan dhaafno halkan waxaan ka cambaareynaa kulli annagoo habeen xalay shirnay guddideeda USP waxaan cambaareyn u soo jeedinaynaa ciddii falka Poochxunle ka geysatay magaalada Taleex magaalo madaxda Khaatumo oo uu ka madax yahay madaxweyne ku-xigeenka Puntland isagoo oo wata ciidanka technicada amba kala duwan ee maamulka Puntland arrinkan waxaan u aragnaa faragelin iyo gardarro cad waayo Khaatumona waa maamul Puntlandna waa maamul waxay sababayna kulli iyaga ka jawaabi habasaate waxaan leenahay marka arrinkaas waa gardarro oo waa cambaareyn baan u soo jeedinaynaa waxaan leenahay ka waantooba hadeed inaad ummad danaheega iyo taladeeda iyo danteeda ka tashanaysa inaad carqaladeysaan gardarrana kuleysaan shay wanaagsan oo walaalnimada iyo wada dhalashada iyo jaarnimada iyo Soomaalinimada midnaba ku wanaagsan ma marka sidaad idinkuba u danaysateen aad gobol u samaysateen ninkii raba isna xaq buu u leeyahay inuu gobol samaysto marka in lagu dadaalo qofka masiirkiisa inuu isagu ka tashado loo ogolaado oo lagu xadgudbin waayo waa xadgudub marka in la iska ilaaliyo marka xadgudubka noocaas baan kulli halkan waxaan ka cambaareynaa kulli annagoo habeen xalay shirnay guddideeda USP waxaan cambaareyn u soo jeedinaynaa ciddii falka Poochxunle ka geysatay magaalada Taleex magaalo madaxda Khaatumo oo uu ka madax yahay madaxweyne ku-xigeenka Puntland isagoo oo wata ciidanka technicada amba kala duwan ee maamulka Puntland arrinkan waxaan u aragnaa faragelin iyo gardarro cad waayo Khaatumona waa maamul Puntlandna waa maamul waxay sababayna kulli iyaga ka jawaabi habasaate waxaan leenahay marka arrinkaas waa gardarro oo waa cambaareyn baan u soo jeedinaynaa waxaan leenahay ka waantooba hadeed inaad ummad danaheega iyo taladeeda iyo danteeda ka tashanaysa inaad carqaladeysaan gardarrana kuleysaan shay wanaagsan oo walaalnimada iyo wada dhalashada iyo jaarnimada iyo Soomaalinimada midnaba ku wanaagsan ma marka sidaad idinkuba u danaysateen aad gobol u samaysateen ninkii raba isna xaq buu u leeyahay inuu gobol samaysto marka in lagu dadaalo qofka masiirkiisa inuu isagu ka tashado loo ogolaado oo lagu xadgudbin waayo waa xadgudub marka in la iska ilaaliyo marka xadgudubka noocaas baan kulli u soo jeedinaynaa maamulka iyo cidii ka dambeysay khasaaraha meesha ka dhacay
waxaan u soo jeedinaynaa talo ummadda reer Khaatumo nooc kasta yihiin iyo meel kasta joogaanba waxaan leenahay wax wada hadal lagu dhamayn karo oo laga wada hadli karo oo walaalnimo iyo isku gurguurad iyo wada xaajood lagu dhamayn karo in qori caaradii lagu xalilo oo lagu dulmo ummad oo lagu dhaco wax sax ma marka waxaan ugu baaqaynaa inay walaalnimada iyo wada jirkooga iyo danta Khaatumo iyo ummadda meesha ku dhaqan dantoodaba la dhowro lana wada xalilo lana wada tashado waxaan kaloo baaqa u jeedinaynaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdisamed Cali Shire waxaan leenahay isagana inaad nabad iyo walaalnimo iyo ku xaar iyo laxaal iyo wanaag raadis inaad wax ku daydo baa laga filayaa laakiin lagama filayo inaad gacan iyo ummad masaakiin oo barakacsan sideedaba oo walaalahayood wada dhalateen oo isku dhiigtiin in aad ku ina dhiig lagu daadiyo oo lagu duulo oo la weeraro wax ka qabta maaha marka walaalaha adigu intood u gurguurato nabad ka dhaca waxa inta ka dambeeya inayna dib u dhicin marka intaas aan kula talinaynaa marka Professor marka su'aasha labaad waxaan ku weydiinayaa maadaama oo uu dhacayo bisha December 20keeda wadanka Ingiriiska shirweynihii Awdal State kaasoo lagu dooranayo madaxweynihii Awdal State adiga wax ma nooga sheegi kartaa qorshahaaga siyaasadeed horta aad baad u mahadsantahay waa kulli shir baa ka dhacaya ballaaran oo lagu dooranayo madaxweynihii Awdal State iyo maamulkii Awdal State intaanan horta gelin bal aniga siyaasadayda iyo qorshahayga waxaan cambaareynayaa kulli madaxweynihii baxay ku magac doontay isku dhiibay maamulka la baxay Somaliland ku doontay hunguri iyo cimaamad una lahayn una qaadi karin baan horta halka ka cambaaraynayna inta ku xigta aniga qorshahaygu waa qorshe ballaaran run ahaan caawa laga bilaabo waxaan u taaganahay inaan isku sharaxo una sharaxanahay madaxweynaha Awdal State waxaan qabaa inaan fulin karo hawlo fara badan oo keeni karo isku soo dhawaasho ummadda reer Awdal dhamaantoodba fikir kasto ay kala qabaan iyo abaabul Awdal State oo shirkeegi in laga muradhaliyo insha Allah ta'ala waana ku kalsoonahay inaan ka muradhidan doono hadii aniga xagga Ilaahay ka noqoto oo hoggaan ka qabto waxaan ku tala jiraa hadii alla yiraahdo aniga qorshahayga kamida inaan muddo gaaban oo 6 bilood insha Allah ta'ala ku tago godob ruuxi laga galay wacshada madaaye ki galayna mabooga keeshigu amahde ki galayna mabooga keeshigu amahde ishuxulinta laga goyn xafuma taqaane maxaadiga ka galay